بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم إذا هنتي بدمان أصحاب تقييمي قدرنتي قاية إنك مدن كسر دبعة جنال كأنسر ميديا مركلية مقال عصب وكسب سؤالي عادي هذه بيدين جرني مالي ولا بقى سؤالها نسيد عادي برنامج كم حكومة قدرني سدح اسكودي هل لك جواب سدح السؤال وجوه الرئيساني سجدين دوني هل كحبادين دري دونه اسكود وحي كقرنان doonaan qaybo kala duwan oo diin iyo dalba ku saabsan su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa si fiican u dhageysta daawadayaal sheeg gobol ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya oo magaciisa ka kooban 9 xaraf hadda waa 9 xaraf saddexda ugu horeysa markii la isku daro la isku aqriyo waxay noqonayaan mid ka mid ah meelaha biyaha ay fariistaan meel biyo ay fariistaan ayaa lagu magacaabaa saddexda xaraf ugu horeysa lixda xaraf ee soo hartana waxa lagu magacaabaa ama ay noqonayaan markii la isku aqriyo midab ka mid ah midabyada la isticmaalo haddaba sheeg magaca gobolkaasi waxaan filayaa inaad garateen 5 ilbiriqsi kadibna jawaabta anaga aan bixin doono haduu Ilaahay وهاجاك dad badan ayaa isku dayay su'aasha jawaabteeda laakiin su'aasha saxda waxay noqonaysaa waa gobolka galgaduud waa galgaduud gal oo noqonaysa meel biyo ay fariistaan iyo gaduud oo ah midabada caadiga oo la isticmaalo mid kamid ah su'aasha labaad ee barnaamijku waxay u dhacaysaa sidan waa su'aal iyaduna diini ah waxa laga arnaa sheegtid magaca nabiga qoomkiisa dhammaan ay wada rumeeyeen sheeg magaca nabiga qoomkiisa ay wada rumeeyeen iyagoo idil waxaan filayaa shan ilbiriqsi kadib jawaabta in bixin doontaan waxaan filayaa daawadayaal dad badan ayaa isku dayay su'aasha jawaabteeda laakiin waa nabi Yunus calayhi salaam ama lagu naanaysan jiray saaxibul xuut sida caadiga nabi Yunus calayhi salaam markii uu qoomkiisa war ay ka maqli waayeen ama markii qoomkiisa ay war ka maqli waayeen waa uu baxay kadib waxa caqab looga dhigay in nibirigii weynaa oo laqo oo calooshiisa u galsho in muddo halkaas ayuu ku jiray kadib markii la soo tufay ay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu saqiray in qoomkiisa dhammaan ay wada rumeeyaan marka horena wuxuu uga carar waxay ahaayeen in ay wada rumeeyaan waayaan oo warkiisa ay qaadan waayaan aad wada mahadsantihiin su'aasha saddexaad ee barnaamijku waa su'aal xujo ah dhagaha fura waxa u dhacaysaa sidan waxa leedahay nin darawal ah ayaa waxa uu wadada ka sii qaaday isagoo gaarigiisa wato haweeney 50 sano jir ah in muddo markii uu sii socday haddana wuxuu wadada ka sii qaaday nin oday ah oo 40 sano jir ah haddaba su'aasha laga raayo waxay tahay da'da rasmiga ah ee darawalkaasi uu jiro waxaan filayaa inaad garateen kan war celin doontaan 5 ilbiriqsi kadib hadduu eebidmo dad badan ayaa isku dayay jawaabtaas waxay noqonaysaa darawalka da'da rasmiga uu jiro waa da'dii markii hore uu jiray oo kaliya sababtoo ah kuma sheegin aniga darawalka uu jiray laakiin waxaan ku sheegay laba da' ay kala jireen maamadii waayeesha ahayd oo 50 sano jirtay iyo odaygii 40 sano jirka ahaa da'dooda ayaga qosaysaa laakiin darawalka da' rasmiga uu jiro waa intii markii hore uu jiro sababtoo da' kale kuma darsamayso da'da asaga uu leeyahay su'aasha ugu dambaysa ee barnaamijku waa su'aashii xaqa u leeyahay inaad ka soo jawaabtaan muuqaalka qaybta hoose ee commentiga aad uga soo baxsataan su'aasha waxa u dhacaysaa sidan sheeg mid ka mid ah degmooyinka dalkeena hooyo taas oo magaceedu uu ka kooban yahay 3 xaraf oo kaliya waa mid ka mid ah degmooyin ma aha gobol waa degmo ka mid ah degmooyinka dalkeena hooyo ee Soomaaliya taas oo magaceedu uu ka kooban yahay oo kaliya 3 xaraf waxaan filayaa inaad ka soo celin doontaan qaybta commentiga mar kale daawadayaal aad u mahadsantihiin like-ta waa inoo muhiim waa inoo dhiirigelin si aan u helno saaxiibo idinkoo kale ah sidoo kale barnaamijka share gareeya tan intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tegayaa sida iyo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh